daawanaysaan waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV.
halkan yaa joogo waxaa lagu tarjumay yaa tahay adiga maxaad ii soo afduubatay maxaad siga damacsantaha aniga ii sheeg
maadaama ku dhibay waan ka xumahay xafiiska air conditioner kuga xiro computerna ku horyaala si farxad leh oo shaqay anigana waqtiga hayga lumin hub dadku ugu mahanjabaaniga haddii aad rabto meeshan inaad ka baxdan way fududahay daawadayaal iska tago ku horyaala file baa ku jira faylkaasna waxa ku qoran account numberkaas laba lag oo kaliya ku shubeysaa kadibna birta jeebadaha lugaha ku xiran si automatically ay isku furaysaa albaabkan waad ka bixi kartaa oo xuraata waa fududahay so simple waxaan sugaabaa waa laba lag oo kaliya
راهول مكفهمويه حال دا horta ma fiicno ayaa ku afduubta ii sheeg baade kaartig aniga xitaa ma ogi waan ku baryaa garabeen kaaga baahanahay horta tartiib wax igu sheeg anaa ku caawinaya saaxiib aniga markii aan soo kacay waxaan arkay anigoo halkan ku sugan gacmaha iyo lugahana waa iga xirnaayeen waan ku guulaystay inaan gacmaha iska furo balse lugaha ayay jeebad adag iga xiran tahay si walbana iskugu dayna waan furi waayey telefonka ay wart lama heli karo waaybe saaxiib telefonkaygii barsadaba meel kuma ogi raahul dhedheeshigi dhaaf yaa saaxiibkii saaxiib waan kuu dhaaranayaa horta wax dhaawac ma kuu yaala ii sheeg maya saaxiib aan waxaa fahmi waay laakiin laptopka maxaa lagu siiyey laptopka waxaa ku jira video uu lacag iga dalbanaya weliba qaab online inaan ugu wareejiyo rabaa aad wax baa ka weyn isdeji arrintan booliska u sheegaa adeerkeena boolis waa waqtigaamo haddii arrintaa lagu weerar xataa ciwaan skype ku siinaa teeda kalena laptopkaaga iyo damin ku dadaali ah jaajarkiis fiirba meeqoo maro ay sheegba bateriga macnaha 88% horta aan saaxiibkay sheekadan waa rumaysan lahaa ku dhahay wixii lagu afduubtina ma ogtid afduubaana ma kula joogo laakiin aan waxay iltahay ina 80 time kula socdi waay saaxiib lacag intaa in leega aniga ma haysto mushaarkaygana kala barobar EMI ga ayaan ku bixiyaa kaarka aan haysto telefonka aan haysto iyo gaariga aan haysto intaba waxaan si dhab u leeyahay maaha hoos u dhacan haddii uu bangiga ugu gaadana wax walba waa ligala wareegayaa banaan cidlaana waan soo istaagayaa saaxiibkay waxaas maxaa hadda ugu hadloosaane bafitra mar walba lacag meel dhigo ayay dhihi jirtay laakiin aniga doqon ayaan noqday saaxiibkii horta aad waxaa sii noolaynay intii lacagtaas ka dhiibaysid ninkaasna nin aqli badan wax kaloo qorshiino ah laakiin aad hawelwelin ninkaas gacantaa lagu qabahaan ku dhahay arrinta halkan taalla ayaa cabsi uga haysa abo adeerkii had skype ka soo waxa ku dheh anan waa ka baxay adiga yaa tahay waa su'aal qaldan qofkan ay maxad ka ogaanaysaa ma saaxiibtinimo inaan dhex maraysa wariyaa waad afduubantaa waana ku rakaateynaya lacag baana kaa doonaya lacag in online lagu xawila shaqo fudud maaha kaarka ATM ka ayaa loo baahan yahay iyo OTP ga telefoonka ku soo dhacay intaba mobilkaaga ma doqon baad ii muddaa wariyaa mobilka dhankaaga ugu tegaya hawsha bilow koodka ku soo dhacan aniga ayaa laptopka ugu soo diray hadalkayga waa fahantaan u malaynaya
راهل ما adiga haa taliye magacaygu waa anan waxaana qaabilsanahay waaxda dabagalka kaartiga ay arrimaha iga sheegay internetka xagee ka heshanay afduubaha aawe madax furashadu kaar waa maxay hadda ilama joogo balse wuxuu igu xijiyey 2 lag inaan dhiibo sidaas darteed ayuu laptop iyo internet dongle ii siiyey wariyaa ma kaa dhaba maxaa yeelay maalmahan waxaa soo badanaya arrimahan oo kale dadka inay baranka ku sameeyaan facebookooda soo dhigayaan markaan baaritaan ku sameynay anaga doqomo noo malaynaya taliye waan kuu dhaaranayaa okay hadda dabagal waxaan ku sameynaynaa internetka isticmaalaysa kaliya waxaad noo soo sheegtaa laptopka aad isticmaalaysa IME-giisa nambarku uu yahay laakiin taliye ma shaqeynaa waxa idin way blogaraysan yihiin xitaa ninkan OS ayuu isticmaalayaa okay dangalka adigoo ka bixin laptopka qaybta hoose fiir waxaad ka arkaysaa dabalkaas kor iyo hoos marka aad fiiriso waxaad ka helaysaa nambarka IME-ga joogto waa sidee cidna kulama joogto miya taliye halkan keligii ayaa ku xiran jeebadna waa ay ugu xiran tahay jeebadaasna waa electronic markaan lacagta shubo kadib ayay furmaysaa siduu ii sheegay waxaad ii sheegtay inaan lagula joogin sidee waxaan u dhan kuugu sheegay markaan soo kacay laptopkana halkan yaala ayaan arkay videona uu ku jiro videogaas ayuuna wax walba iigu sheegay xawlaadda online-ka wax fudud maahan waxaa loo baahan kaarka ATM-ka OTP-ga kadibna mobilkaaga lagugu soo diray taas aniga xitaa waan u sheegay taliye wuxuu dhahay shaqada bilow koodka markuu isoo dhac kadibna laptopka ayaan kugu soo diray ayuu yidhi waxaan u dhan sidee kuugu sheegay video kuugu duubay waxa waa markaas kadib raahul si fiican wax iigu sheeg qolkan keliga ayaa ku tahay adiga afduwaa videogan keliya sidee xiriirinayaan wax macquula ma tahay arrintaas markii aan laptopka furay kadib Skype-ka ayuu igala soo hadlay maxay tiri haddaba saas deetaa waa nin kula socda adiga qolkana kaamirooyin ugu xiran laptopka dhaqdhaqaaqiisana gabi ahaan wuu la socdaa haddaba taxadar waa inaad yeelataa dadka kale markaad la hadlaysid akoonka uu kuu sheegayna warbixintiisa ii soo dir waxaan rabaa arrimo dheer inaan kaa ogaa markii lagu soo afduubanaya xaggee joogtaaday sideese lagugu soo afduubtay xilli habeen ayay ahayd shaqadan ka soo laabtay mooto ayaan watay nin ayaa lifti aniga i weydiistay markaan masaafo isaga u jirsadayna waxaan dareemay wareer sida in qof la sumeeyo kala cawarcawarkii markaan arkayna mootada dhinac ayaan istaajiyey danna waxaan is arkay markaan soo kacay anigoo meeshaan jooga wejigiisa ma xasuustaa ninkaas ninka videogaad ka aragtana sidoo waa kaa habeenkaas xilli saqbara ayay ahayd si fiican wejigiisu maan arki karin midka hadda videoga la hadlayna maaskara ayaa ugu xirnay tali laftiga meesha kugu wadiis xaggee ahayd sirsari agaaraheeda tali macnaha habeenkaas habeenkii asxaabtan kalaab u raaca mogta kadibna shikiliyaan cabe ka gudub raahul arrimahaaga wax iiga sheeg shaqadaada wax iiga sheeg mushaharkaagana wax iiga sheeg tali IT ayaan ka shaqeeyaa 70,000 ayaan qaataa bishii alloora ninku daba joogayo ninkaas wuxuuna ku weydiistay wixii aad awooddo adiga wax dhigaal ma leedahay adiga tali aniga aabbahay hadda ma noola mas-uuliyadda familkana aniga ayay saaran tahay mushaarkaygana hooyo iyo abbaayo ayaan u qaybiyaa inta yare iyo hartana waan ku baashaalaa balse karabar mushaarkayga EMI-ga iyo credit cardka ayaan ku bixiyaa tali haddii ay macquul tahay hooyaday hal mar meela soo hadashin kartaa raahul waxba ha rajo dhigin goobtaa ku sugan tahay aan dabagal ku samaynaynaa waxaanu kuu soo dirayaa ciidamo adiga ku soo badbaadiya ha cabsanin laabtoobka baterigiisa imisuu kuu maraya 78 tali okay kiiskan waa kiis khatara isagoo og shaqadaada in ay tahay IT ayuu laabtoob ku siiyey kadibna
internet ayuu kugu xiran ninkan damaciisa oo waa uu ka weyn yahay lacagta uu ku weydiistay ma waxaad rabtaa inaad wax idhaahdo aniga taliya meeshaan soo fiiri bal aawa kaale adiga waa kiis halis ah raahul waxbaa cabsanin adiga ciidankeena sida ugu dhaqsiyaa badan halkan kuugu imaanayo haye raahul fikirkaaga muxuu yahay sheeg xaddiga lacagtaas ma haya hadda marka hore maxaad iigu sheegi weyse ood sidaan ii dheegi weyse maxaad waqtiga iga lumisay warkaale adiga maxaan internet kuu siiya asxaabtaada inaad la xiriirto ood lacag weydiisato maaha inaad boolis la hadasho war hede aniga nin halisa kulma u muuqda ma ah gadaashaada fiiri ma doonayo inaan adiga ku dilo gacmahayga nadiif dhiig kuma wasaqayn laakiin nin saaxiibkayaa jira howlahaas ii kala toora haddii aad meeshaas ku caajistayna video ayaan kuu soo dirayaa markii aad daawato kadib kala go'aanso inaad booliska wargeliso iyo inaad laba leg soo xaliso waad fahamta soo maaha راهول أديركم كل صاد لنا إن عرست معانا ولا مرة ويكسو قارايا داود يا داود أرنتان محلين كرتد ويانا إيشك لبلا وكذي بدي كرتد 24 تي في لعقت دي لسي إنه سكودينا يقود مان قاضي ugu horeynta laabadan aan qaadno balka waran booliska haddii waqti fiican uu soo gaari waayo ninka haddaan lacagta siin inuu isii daaya laga yaaba aniga wejigiisa maanan arkin akoonkiisana cid aqoonsan kartaa ma jirto ninka halkan yaalana waa weysadkay sidaas darteed ayuu ku dhintay nin si fudud lagu qaban kara maaha ninkaan shaqadiisa haddii xadidantaa ka baran aboo ninka xagga waran dharcama waxaa laga yaabaa akoonkiisa inuu isticmaalo inuu dil adina waxaa laga yaabaa saas in lagu yaalo aboo xumaatana ha ii fahmiyaa igraal noqo abuu waxaan ka cabsanooyaa ninka gadaashada jiif sida la yaali in lagu yaalo ma dhacaysa taas sidee ku dhihi kartaa taas skype-ka video ayaa laygugu soo diray ninka halkan yaala maaragta booskan ayuu fadhiyey lacagtii madax furashada ayuu raadinaya balse lacagta intuusan bixin ka horba waaba la toogtay si lama filaana ayaa qof xabad ugu dhuftay waxaa laga yaabaa ad in lagu
marka meedka mobile miya abuu qofkan wuxuu egyahay qof mar hore la dilay qaab qorsheysan oo adag ku soo afduubtay oo wax walba u sameeyay qofkan haduu dilay meedka maxaa meesha ugu qaadi walaalo meel hoo u baahan hadal waxba kama taro aniga waad la socotaa gaarigayga raaxada lacag badan inaan ka bixiyo bafitrana waxay dhigi jirtay lacag meel dhigo balse anaa xoolo tuur la noqday lacag meel dhigo waay maantana waa ay haysataa hadee macquul tahay waxaan kaa baryaa bafitra iskaabkan igala soo hadashay inaad iigu sheegto iigu gudbi fariintaas okay abuu ha cabsanin yaa hay mahadsanid راهول maxaa ku daar saaxiibkay naqaska igu dhagan geedkaaga neefta ah intee geesi waxa laga yaabaa inuu isaga iga qaaday saaxiib hay dhaqs wax mugo wax meeshan inaad ka baxdaa aad bay u fududahay laptopka ku hor yaala desktopkiisa file baa ku jira waxaana ku qoran filekaas account numberka laba link ku soo shub accountkaas qolkan keligii ayaa ku xiran jeebada lugaha iga xiranna waa mid bir ah waxayna u muuqataa mid elektarooniga inay tahay tali awoodna uma lihiin aan furo raawul waxbaa cabsan ciidankeena dhaqso kugu soo gaaray tali silfaasaf ها تلي nalka shid sida caadada noo ahayd kiiskan waa kiis halis ah halkaana waxaan iskugu wada imaanay in aan waxyaabo badan ka falanqeyno marka nin walba fikirkiisa uu ka hadli karaa master aniid adigaan kugu bilaabaya baryahan dambe sida ay u bateen qaababka online-ka lacagahan la iskugu gudbinayaa ayay sidoo kale burcadda online-ka ku shaqaysatana u badatay waana sababaha dunuubta ugu badan ay u geysanayaan tusaale ahaan iminka qaab online credit card baa loo isticmaalaa shopping baa la samaystaa banking baa la sameeyaa waxa ugu muhiimsan laakiin waxa weeye passwordka marka anaga shakhsi walba naga mida password uu samaysanaya ama number sireed si fudud ayuu u samaystaa wuxuuna ka dhigtaa tusaale ahaan magacyo ha noqdaan magaca waalidka ha noqdo qof kugu dhow qaab ahaan sidoo kale waxaa la raaciyaa nambaro sida taariikhaha oo kale qofka sanadka uu dhashay bisha uu dhashay iyo wax la mid a aaladahan markii aad isticmaalayso passwordka si uu adkaado waxay kuu leeyihiin xarfahan oo kale raaci mar walbana anagu biin samaysanaynana inaanu inta raacnaa waa mid muhiima laakiin waxaa jirta mid taas ka sii muhiimsan personal information jabsadaha burcadka waxa uu ogaanayaa xogta shakhsiyadeed ee qofka ku saabsan then ayuu baasweerkii la wareegayaa akoonkiisii kadibna baasweerkii ayuu wuxuu isticmaalaa inuu hakin garay xitaa wuxuu garaaci karayaa qaybta adeega macaamiisha ee shirkadaha isagoo xogta shakhsiga isticmaalaya si biinkiisa u bedelo annaguna mar walba waxaan wargelinaa aanu idhahnaa macaamiil qofna hala wadaagin xogtaada gaarka balse kiiskan marka loo eego arrinta kiiskan ama afduubaha totally dhibanaha xogtiisoo idil ayuu hayay oo gacanta ku haystay sirta ka dambaysta la haystaa in laabtoobka la siiyana waxay tahay inuu dawarsado oo dadkiisa
lacag weydiisto si akoonka loogu shubo dabadeed ninka maxaa lahayd muxuu ninkii maaskaraa xidhnaa lacagta si fudud buu ku qaadanaya haddaba la haystuhu waxay nafta baaqi ku sii ahaanaysaa intaan afdubaha lacagta loo wareejin xogta shakhsiga bangigiina ama laga dhiibaa mudane horta taliyanak wax walba bangigeena ku saabsan wax qarsan waay si aan maaragtay kastamarka aan la socono ama aan deen u siino waxaan ula tashanaa 3 qaybood macnaa oo iibiyaashaana ka mid ah marka saasaan suubinaa taliya exactly waaba xagga laga xado xogta shakhsiga qofka haddaanu akoon isticmaalin ama kaar aanu isticmaalin lama ogaan karo cadadka mushaarkiisa iyo waxa uu ku shaqeeyo marka waa qasab inaan ogaanaa hawshan halkan ka maya anaga taas ma ku eeday karno maxay call centerka iyo shaqaalaha dhan maaragtay taargaday leen si markaa su'aal walba loo weydiiyo jawaabteed loo helo saxan waxa lagu tarjumay studio asal 24 TV horta maalmahan waxaa la keenay akoon in la jabsado EVC in la jabsado habaliska jabsi annaga maadaama aannahay madaxdii shirkadda waxaan keennay dadka waxaan u suubinaa warbixin iyo wargelin iyo wacyi celin waxaan dhahnaa iska ilaaliya baaswooradiina la ogaanay wixiina la ogaanay ha idin qarsanaadaan marka intaas ka bacd maxaa suubinanaa kastoo markeena waa jecelnahay wax ka badan oo suubi karna male idink maxaa ka dhiilaadaan sheegaba kiis cusub waa bixi keenteena xal kale ma jira haddaba ii sheeg horta waxaa fiican mataqaanin baaswoorada in la kala bedelo lambaryaal maaragtay isku ekeen laga dhigo idinka diida mise doona indii mardho horumaray gaaraysaa weli digital marka annagana mar walba waxaan naga rabaa mataqaanaa dadweynaha iyo shacabkeenna ugu digno wixii dhibkooda annagana waa u taaganna waa u surunna mar kasta mudana akoonka keenaan bal ka waran warbixintaas mujada isbitoor shaarbu waa la wadaagay ahee kiiskan waa la la'yahay 2 beri ka horaana la qoray ay tali akoonkaas maxaan iibinaa ii sheeg beh maya afduubaha ayay shaki gelinaysaa isbatoore maaskarada ninkaas tixraac ma ku samaysana maaskaraatadan ma ahan wax alwaax laga sameeyey ama waxyaabaha caadiga waa maaskaraato balaastiig ah qofka sameeyna run ahaanta markaan raaraadine waa soo waayne laakiin hal qofaan ugu shakane tixraac markaan ku sameynana waxaan ka soo ogaane inuu ka agdhow yahay agagaarka meesha lagu magacaabo Sarandabuur teeda kale waxaan soo ogaana qofkaas inuu indhoolo yahay laakiin dareemaha uu ku socdo qof dareemaha ku shaqaystana uu yahay haddana idin tusay suga maaskaraatadan waxay u samaysan tahay maaskarada ninkaas oo wata ay isku mid yihiin micnaha annagoo arrintaas tixraac ku sameeyayna aan waxaan helnay sawir ay isku mid yihiin maaskarada waa kana sawirka tiimka nadwalka raahul meeshu jooga inaad dabagol ku samaysaan waqti inta laga ku qaadis tiimka badbaadadana aaway horta habkaani hab qadiimi ah laakiin saameyn ay leedahay telefoon ha ahaado xog ha ahaado kaar ha ahaado doonkal ha ahaado IME wax la dhaho isleeyahay sida ID kaar camal waay waxaana lagu aqoonsahaa meel walba siyaalo sheegaas ama telefoon ha ahaado ama computer ha ahaado sida hadda raahul dangalkaas isticmaalooy oo kale waa kana raahul meeshaas jooga 3 oo taawara ku hareeraysan 3 taawar mid ka mid ah taawarka oo signalka xoogan aska helooy kan waay marka sidaas darteeda modemkan hadda anako isticmaaloono si toos waxa ugu dhigi karnaa geo location wax la yiraahdo waa ku bedeli karnaa macna waa awoodna ka wada laakiin arinta jirta waxay tahay geo location sida GPS amal maahan oo sida qofka meesha jooga si toos ah ku geeyay laakiin geo location waxa la isticmaali karaa meesha qofkaas jooga wadada dhismaha ama apartmentada laakiin nasiib wanaag goobtan waxa ka agdhow company IT oo laakiin qabi ah tiimkaasana la wadaagna ka garab nagu sii hayaan taliya tiimka badbaadada waa u sheegnay goordhowna wadaday ku sii jiraan waa gaarayaan meesha ayagaana hawshooda qabaaya kabiisa
راهل أفضوها مكلا سو حريرنا ها tali qofka halkan lagu dilay fiidiyogiisa iyo qaabkii loo dilay ayuu ii soo diray tali uuna igu hanjabaayay wax kale miyuu ka codsaday laba lagu kaliya tali ilaa had lacagtu ma dirin soma lacag intaa leeg ma haysto tali hatta haddii lacagtaan u dirto naftaada halistaan kama baxayso kombiyuutarka baterigiisa imise ayuu kuu marayaa 38 tali bateriga intuu sakaadhin ciidankeena ku soo gaaray waxay isku daydaa ninkaas inaad la hadasho si aad warbixin dhammaystiran uga hesho waxaa macquul waalid dhaqanta inuu yahay tali ninkan waa nin aad u caqli badan dhaqanka sidiisa ma wareero kuwa caqliga badan ayaa waalida u dhow tali kii sidaanoo kale hore uma waxalisayna ii sheeg si dhiirnaan ii gasho waxaan u malaynayaa 6 bil ka hor ay ahayd kiis midkan ka agdhowaanay soo maray sidaasoo kale qofkaas qol ugu xirnaa laakiin taleefon ayuu haystay wuu ila soo xiriiri jiray anigana waan la hadli jiray ugu dambeyn maxaa dhacay nambarka IME-ga anagoo tixraacayna ayaan goobta ku sugay sugaan waxayna ahayd goob jannaay ka baxsan magaciisana wuxuu ahaa ranjiit hawlwalin adiga dhibaato kuma soo gaarayso haddii aad wadasho dhibaatadan baa kugu saa'idaysaa goor dhowna anagaa ku soo gaaray ranjiit هاي لعقت ماشي ما صاحبك يا إيسو دري إسقان ويدي مركو إيسو درن وانكو وريجنيا
adiga maaskaraha maxaad u xiran tahayna ma waxaad qaranaysaa aqoonsigaaga mise waxaad ka cabsanaysaa in lagu qabto waryaanan maaskara xirnayn goobtan maaskaru maaha noocan anigii xiran oo keliya suud madow ayaad soo xiranaysaan ingiliishaad ku hadlaysaan aqoonsigiinaad qarinaysaan weji beenaad yeelanaysaan gawaariyaad dadka dhiiggooda ka gadanaysaan guryaad ka yeelanaysaan waxaasoo dhan waa maaskara laakiin aniga aqoonsi ayaan leeyahay aniguba maaskarahan ayaa aqoonsigayga ah waxaa laga yaabaa in weji qurxoon ama mid falxumo ah uu ka dambeeya ama waxaa laga yaabaa weji dhaawacyo fara badan soo gaaray inuu ka dambeeya laakiin waa aqoonsigayga kumaa tahay ma lacag darteed ayaad aniga iisoo afduubatay qorshahaaga muxuu yahay maxaad ka damacsan tahay afduubkan qorshaysan ayaad aniga isoo afduubatay ii sheeg ma waxaad doonaysaa booliska sheekaad uga sheekaysa dhibaato ma lahan war doonaa tahaanaa war ku siinaya laakiin qof sideedoo kale ah sheeko laga dhexli kara maxay noqon kartaa horta sideedaba anigu bini aadanka waxuu ma dheeri sidooda oo kale ayaan u dhaqmaa balse waxaad ogaataa wax walba markii aan dhalanayno agagaaraheenna ka dhaca inayna saameynayaan anigu markii aan dhalanay adduunkao dhanaa barooranaya aabbahay siyaasadaha adduunyada ugu jecelahay inuu cayaara wuxuu ahaa inuu bamka wax ku dilo geemkaas nasiibkiisa waxuu ahaa moogi balse magaca aabbahe ayaa loogu magac daray sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan aabbahe ku waayay balse markaas kadib ayaan bilaabo magacaas inaan isticmaalo aadna waan u jeclaada magacaas isla sanadkii aan dhashay waddankan waxaa laga aasaasay sector IT ah sectorkaas IT-ga laba bulsho ayuu aad u kala fogeeyey mid ka mid ah taajir buu ka dhigay mid ka mid ah noloshooda ayuu burburiyey mid saxan dahab ayuu wax ku cunayay midna cunto u tuugsanayay waxaasoo dhan waxaa ugu wacan wixii aan xaq u lahayn ayaa lagu aasaasay restaurant mall apartment bank iyo waxyaabo kale nin tuugsadaa laba waddaa u bannaan inuu tuugsado iyo inuu wax dhaco damiiraan ku tuugsado ma lehen laakiin kartiin wax ku dhacan lahaa anigoo taalentigayga isticmaalaya ayadoon lee qaban ayaan dadka dhacay laakiin ma og tahay idinka oo kale in laydin dhaco aaday u sahlan tahay maxaa yeele mar walba waxaad ku mashquulsantihiin waxaa idin soo gala dadka noociinoo kale ah dadka sharaftooda waxay ku qiimeeyaan waxa soo gala oo keliya balse wiiluu awow u yahay gaanti halkan maba joogaba waxaa hubaala gaanti haddii uu maanta noolaan lahaana runta ummaddoodii lahayna sideedoo kale ayuu noqon lahaa horumarka IT-ga iyo lacagaha aan shaqaysan ayaad ka masiirsan tahay maadaama aanad gaari karin heerkeen oo kale war hadha daciifnimo kuuma muujinaya aniga inta calan gaduudan qaatana ma bannaan baxayo oo xaqayga uma doodaayo hadalkaygu waa cadyahay tuug baan ahay haddana caqli badan haddaadan lacagta isiinna waan ku dilayaa ogow xitaa booliskaad isku halaynayso anigu timahayga ma taaban karaan nacasyo waa waalida dhaqantaa
كارتي لعقت ما هشينا lacagtaas hal qofood in laga heli karo ma umaleysaa dad badanaa weydii 30 kun aan ii dhiman waana dadaaloyaa ka cabsanay adi markaan helo anaaba kuu soo diraya ku dhahay كارتيك صاحب قعنتها فضدي نكن أدى يعريسيها هدي لعقت لسين وين خبال ويدليها anaa kuu soo diraya laakiin adi dadaalkii ku baxsan leeda le muuji صاحب دذال ما يريسناي بس إيجان إيجو دل قرشات سفي على وسود دياري نسي فضل لوجا بحسن كرنا إلى ميكا راهول هذا فيلمانتا ما في رصيد ما يشكبه قرش والبو سفي عن لو سود دقا كده ميل لو كده عسوا مركا هذا سوالن نين كان وحا رادين الدولال أو ير هذا أو دقمي سكرت ذا كده مركز نوك جولة سنة كارتك نكان ونين مسكح بدن سعادة يلابتوب إنترنت اسكو حرن إيشية وحون يقول دارت إنا لقبن دونين saaxiibkay aad ba arrimaha ka baxsanida ku dhaa 24 saac computer da urdu saadi xafiiska joogtid iyo hadii gurigaaga joogtid le ama ku itixaamaan kan ila ma ha saaxiibtaas baahida lacageeda hayso waxa kaga baahi badan baabi inta kooxdeena ay tiiga ninkan anaga ayuu noo gaarsanaya tida kale adiga waad saxneed bangi accountiga isticmaalay isaga ma laha balse shakhsiga midkii halkan yaala accountkiisa ayuu isticmaalaya waana hacker cajiiba maxaa ku heesta ugu bixi laaday meeshan ii sheegbo jeebada birta ay ugu xiran ayaan awood u lahayn inaan iska furo wuxuu ii sheegay inaysan furo lahayn balse kontaroolkeedu isaga hayo goorta ugu horeysa lacagta la wareejiyo inuu iga furayo ayuu ii sheegay ma jibi kartid ma ii sheegbo may ilaa hadda waan isku dayayaa fiilooyin ay ku xiran tahay ma jirtaa jeebada may wax fiilaa halkan kuma yaalo abuu waxay iltahay inuu wireless isticmaalo wireless hadduu isticmaaloyna agtaada maka dheeraa ku dhow ku dhow yahay sida ila tahay halista noocaas ninkan uma bareerayo waxay ila taa ku dhahay qolkaaga wax dhaxyaalo inuu jeebada ku maamulo ninkaas hakarka ayaa isoo wacaya kaartig wax yar sug waan ku baryaa raul وريال لعقت مي ديارس ما يقول ما ديارين ما هذا لا ضاهيسا وذا أكتر هذيك العقد تسلقين أنا نهيسن أصحابتي ذا والله الله والحين وين أدمت فهمتار راهول ما أكتر صوبت هذيك اللجوء حشي أيدو أي جيران دت فربضنا سيدا ذا كلاه أنت كسوقش كبضنا أي سوقش إلا لجاره أيان كهيا لعجيه هنا يقاب كدقاق وذ الأمان ومد لا صعده هوشنا مد عصمها دون كودنا كسعتها ورهد ما وحي كلها تاي بس ويرحنا هذا استعمال شتوقنا نوعا وكلا إنه كدفاعي كره هي أن له نبأ وحكو صواعي نمبر هذا نقول نمبر كاس هالكمر أو كصواع وحلقوا أغانية أنت أذيك خرج كريسة أصحاب هذا لأن أنت أشخو ذاك تندات ذوان حياني وارن أنا العقد بدن وان قرش كري alaabo badan oo waan isticmaalay laakiin waxa soo idil waadeen gaariga guriga telefoonka wax walba waxyaabahaas oo dhan waxaan aniga leeyahay ma ahan wali ma aanan yeelan 10 sano ayaa loo baahan yahay inaan shaqeeyo masar raahul ilaa iyo hadda waxa aadan fahmin waxaan ku weydiisanaya ugu horeyn sawiro ayaan Skype-ga kuugu soo diraya kadib waan wada hadlaynaa waa ku baryaa qoftan ha wax yeeleenin barfitra waa ku baryaa waxba ha yeelin iska sii daayada waa ku baryaa baa ku sameynayada hal jaanis kale ayaan ku siinayaa labadiinaba 4 leg ayaad isku furanaysaan markaan qiimaha uu sare kacay video ayaan ka duubayaa akoonkaaga sheeg tuugso si lacag loogu soo diro magacayga waa raawul company IT ayaan ka shaqeeyaa waxaan afduubanahay 4 leg oo lacaga darteed haddana lacagtaas dhiibin ma gafahan waa idila wax alla waxaad awoodaan waa idin baryaa
akoonkayga iigu soo shubo nambarka akoonkuna waa 0462 123 856 7854 IBC-gayguna waa KKBK 0000 462 waa idin baryaa badbaadiya caawiya haddii kale magafahan waa idilaa magaf arxan male waa ogtihiin idinkana dhiguma fiirsan lahayn marka intaana igu filan ma faraciisaa tugsan jira tanaa igu kaliftay مقف وحاكو حاسين ما قاجة في رايس لكن نصيب هناك ماشي وحابك يالا كمبني اي تي او قبيه أبو راول محسمس فيديو لقى دوب يأكل يوتيوب كله باهي لكن قف بس كسينة اسمه لا أنا أكله أرنتاس إن سمس أنا يعني على ساقش هذا هذا أنا وافير سدي هذا اللي فيرس magacaygu waa raawul shirkad IT aan u shaqeeyaa magafa ayaan u afduubanahay afar leg ayuuna iga rabaa aniga saaxiib aniga maxaan kaloo sameeyaa waddo kale iima furnayn bafitra xitaa way afduuban tahay saaxiibkii maxaa ku hadloosan adi war aniga video ayuu ii soo diray wejigeeda ku dhay si fiican u fiirisay baafi ma aad ii sheegbo
fideoga intaanan si fiican u arkin ayuuba go'ayba laakiin waa iyada ahaa muddo bilooyin aynu daba socday saaxiib 4 lag ayaan kaaga iyo master rahul muuqaalka duubta youtube-yada la soo dhigay meel kastana uu ku baa anaga soo kulama soo xiriirin adiga ma soo heshay meeshaan ku suganahay ii sheeg taliya xaqiiqada haddaan kaala hadla intaan u malaynayna wuu ka caqli badan yahay ninkan kombiyuutarkaas internetka ku xirnaana doongalka u malaynan maba ahaynba IME-ga ayuu u bedelay si fudud ayuuna wax walba u kala bedelay annagana wuu naqalday runaantu waa nin khibrad badan sidaa darteed laabtoobka internetka ku xiran waa mid wireless ah anagana qorshahayna dabagalka waa aan bedelnay keliya ma noo soo sheegi kartaa IP adresska intaasoo keliyaan kaaga baahanay haddii ay macquul tahay taliya runta ii sheeg awood muu yeelata ranjid inaad badbaadiso maya intaanan gaarin goobtuu ku sugnaa cabsi darteed ayuuba isku dilay daawadayaal filimka aad daawanaysaa waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV maxaa kuugu dhegno soo bixi weys ii sheeg jeebadda ma la jibi kara miyaa maxaa haddee basaas tahay qolka waxaa u yaalaa ku dhahay wax jeebad oo kontaroolo xaqiiqada haddii aan kuu sheegay sidaan u malaynayna wuu ka caqli badan yahay khayaano fudud ayuu isticmaalaya saaxiibkay ninkaas adaba maka yaraysidaa ku dheh 24 sac kombiyuutara ku mashquulsantay aan waxaa umalaynaya ninkaas inuu ku tijaabin way aaday isku day inaad la hadasho si aad xog dheeriya uga hesho ninkaas maaskarahan waa aqoonsigayga nasiibka geemkan waxba kama aqaano balse magaca waa magaca aabbahe magacaas ayaan barka isticmaalaya waanan jeclahay magacaas war anigu daciif maahi oo intaan calan gaduudan qaato banaanbaxayo waxaan ahay tuug weliba tuug aad u caqli badan waddanka oo dhan ma laga ilmeynaya ayaan dhashay aabbahe siyaasaddu adduunyada ugu jeclaa waa qaraxa isla sanadkan adduunyada ku soo biiray ayaa waddankan laga asaasay IT sector
marka adiga lagaa reebo asxaabtaas la shaqaysan oo dhan dhaatooyinkooda waan hayaa dad aad u fara badan oo intaad haysato ka badan haysta ayaa jira maxaa adiga lagu soo afduubtay credit kaaryada iyo deymaha maxaad idinkoo keliya waa heshaan midii sheeg ma waxay kula tahay baasweerka xuneeda isticmaalaysid tug nooceegoo kale inuu kaa celin karo gaantii haddii uu joogi lahaa xitaa maanta runta uma dagaalami lahayn tug sideedoo kale ayuu noqon lahaa subax wanaagsan waxaan ahay gaanti waxaan kaa soo wacaya aadi ibad waxaanu ku siinaynaa deed faa'iido yar laga raadinaya ma ogaan karnaa mushaarkaaga intuu yahay saaxiibo qof walba si qorshe u dawo qorshihiisa ku dhahay soo u fiican yahay meel yar loo ka dhicsooba adina waxaa ka arbaa meeshaas inaad raadisid
daawadayaal filimka aad daawanaysaa waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV. ugu dambeyn waad baxsatahay waxaad tahay khiyaano leh laba sakuurad ay albaabka ku xiran adigu kuma taha maxaad aniga daacad isaga kay dhigaysaa laba lig ayaan ku weydiistay si labada logba aan kaaga furo laakiin adiga caqligaaga ayaad isticmaashay jiibooyinka lugaha kuugu xirnaan waad iska furtay waxaad heshay internet iyo weliba skype ugu dambeyntiina lugaha waa ku xiroobeen hadda maxaa xiga ma ogtahay qaabka aad jeebada isaga furaysay inaan aniga kuu bilaamiya oo adiga lacag darteedii ma soo afduuban ma waxaad la ciyaaraysay ciyaarta doqonka iyo caaqilka waxaanad rabtay Soomaaliya haddii caddayso dadku idin inaad ka caqli badan tahay waxaan aad ciyaarta moodaa ciyaar maahayn waa nasiibkayga iyo nasiibkaaga waxaa jira hal farqi oo labadeena noo dhexeeya waa shahaadada adiga ku saashay wax walba in aad ogaato anigana ii diiday inta aan ogahay in ka badan inaan ogaado waxbarashada sideeda waxay qiimo u kala leedahay qofka shahaadada qaatay mushaarku ku shaqeeyo iyo qofkaan shahaadadaysan mushaar uu ku shaqeeyo waxaan shahaadooyinka heestoo dhan ma aqoon ku filan ayay leeyihiin xirfad boqolkiiba konton xitaa ma leeyihiin annaga mushaaraadka idinka xaggiina ayuu naga soo galaa balse waxaynu nahay dadka aad u soo wacdaan deymaha waxaynu nahay dadka kreditkaariyada aad weydiisataan waxaynu nahay dadka dhismayaasha aad weydiisataan xishmad in noo qalanta mana xishmaysaan ma noola macaamishaan sida dad idinla simeen inaan nahay war hadha agaarihiina haddii aan ku nool nahay taas micneeda maahan idinka qabaana iyo eeyeyna idin ah kaligaa kulama cayaaraya waxaan la cayaarayaa dhammaan inta caqliga isku sheegaysa ee qarshaadka anaga rafaadkan u marayna si fudud ku qaadanaya iyo arag inaan ahay nin dhooni ah iyo arag inaan ahay nin waalan laakiin waxaan ahay caaqil waalan laakiin bafitra dhexdeena maxaad u keentay iska sii daa ugu yaraan hadda ayada darteedaad u cayaaraysaa dhagahaagu ha furnaadaan dareenkaagii amaahe telefoon baad gacanta ku haysataa sharciyaduna isma aysan bedelin bateriga telefoonka intuusan kaa dhicin waa in aad heshaan nambarka albaabka lagu furi lahaa the game is on qorshe kale inuu damacsan yahay laga yaabaa waxay ila tahay inuu ku barooweyno ninka doqonka ma wareero kuwa ugu caqli badan ayaa waalida uga dhow waxaa laga yaabaa 6 bil ka hor inuu isoo maray kiiskan mid aad iyo aad ugu dhow qofkaas sidaadu kale qol ayuu ku xirnaa laakiin telefoon ayuu haysta daawadayaal filimka aad daawanaysa waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV. laakiin anigu ma ku dilay gacmahayga way dabacsan yihiin waxaa jira qof saaxiibkay ah oo howlahan ii qabanaya tali runta ii sheeg ranjiid ma badbaadisayna maya intaanan goobtaas gaarin cabsi darteed ayuu isku dilay